Soomaaliya marka waxaan ku soo bandhignay aragtideena ku aadan federaalkaas oo dhowr qodob aan ku soo qaadanay mid saabsanaa diyaarintiisa iyo zeeyga lagu diyaariyey iyo duruuftii lagu diyaarinayay aragtidaan ka qabno midna waxay ka hadlaysay khaladaadka ama tusaale ahaan khaladaadka ku jira qaar ka mid a mid kale waxay ka hadlaysay asixintiisa ayaan ka qabno iyo kala soo jeedo u dambeysay sidaas buu ahaa marka shirkiinan jaraa'id oo aad qodobadaada ii sheegtaad kaga hadasheen nuxurka ugu weyn ee ku jira wuxuu ahaa baan umalaynayaa inaad diidan tihiin qaabka hadda lagu wado qabyo qoraalka dastuurka saas buu ahaa qaabkaas uu ku socdo inaysan qaab munaasaba ahayn oo fursadii ummadda ku ogaan lahayd iyo fursadii ummadda ay maaragtay ku dirsa macnaha dastuurku inuu hadda yahay mid Soomaaliya lama samaynayo uusan ahayn mid Soomaaliya samaysatay markaan fiirino qodobada dastuurka ku jira qodobada sida gaarka aad u dhalisan tihiin waa kuwe waxaa kamid ah sajidiisa ama xulayska weyn waxa la saaray waxa weeyaan waxa lagu yaqaan xuquuqinsaanka baa xulayska weyn la saaray aada loo saariyey ayna ka muuqato nooc min guurin ah ka muuqato iyo maaragtay shuruucda caalamka iyada la waardiyanayo masalan 32 qodob ayaa laga hadlay xuquuqinsaanka oo taqriiban 9 biis oo kale ama ka badanba ayaa laga hadlay bayna waxa ku tacalluqa islaamka iyo diinta iyo isku gudbiyo lix qabar meelahaas lix qabar isku noqonaysaa marka xulayska waxaa la saaray xuquuqinsaankaas iyo sidii loo baahin lahaa sidii loo difaaci lahaa iyo aada loo wardiiyey laga hadlay diinta iyo yani xulayska leedahay iyo lagama hadlin kale waxa weeye hataa marka laga hadlay qodobada la bedeli karo dastuurka iyo kuwa la bedeli karin kuwa aan la bedeli karin waxaa kamid ah kuwa xuquuqinsaanka iyo maaragtay dumarku inay maxaanku ka qayb galaan maaragtay hay'adaha dawladda iyo maaragtay guud ahaan in dastuurka aan diinta islaamka ku salaysan yahay hadalada noocaas ahay baalada ayaa la yidhi maaragtay waa lama taabtaan laakiin meelaha muhimka ah ay kamid tahay dawladda diinta inay islaam tahay iyo waxaan islaam ahayn in lagu fulin karin Soomaaliya iyo in lasoo maaragtay lasoo fulin karin laga soo horjeedo diinta shareecada islaamka arrimahaas oo la oran karo inta u ran weeye oo ku tacalluqda diinta lasoo bandhigay ayada waxaa lagu daray qaybta la bedeli karo baa lagu daray laakiin hadda masalan wadanka iyo dalka iyo masalan wadanka dastuurkan iskale oo Soomaaliya meesha ku yaallo iyo maxaanka xuduudihiisa beriga iyo badda midna lama sheegin maxaanka xuduudiyada qaadashadeeda aad baa loo fududeeyey oo macnaheedu yahay haddii sii joogo 10 sano sii joogo ama 20 sano in dad kale wadanka ay qaadan karaan xagga xuquuqul insaanka iyo xorriyada shakhsiga iyo aad baa loo faahfaahiyey uma xirin aan ka hor imaanayna shareecada lama oranin xorriyada shakhsiga iyo xorriyada qoolka iyo xorriyada xaafada iyo xorriyada iska furan baa waxaa laga minjirinayaa qoraallo kale iyo dasaasiir kale laakiin mas-uuliyiinta xorriyadooda iyo maaragtay nafasta ay tahay shareecada ku xayeysantaa loo baahan yahay lama ishaarin mas-uuliyiinta dowladda kumeel gaarka iyo guddiga dastuurkan wax ka soo sameeyey labada waxay sheegayeen in dastuurka la waafajiyey diinta islaamka culimmadana lagala tashtay culammada lagala tashtay waa kuway haddii aad idinka sidan u dhaliilsan tihiin dastuurkii qabyo qoraalka wallahi waa mushkilad marka xasilada waxaa weeye wadankan Soomaalida oo burbursan oo kala maqan oo kala darsan oo islaamida luntay dadka noocaas oo kala maqan oo la oran karo dadka maqan oo isku maqan la oran karaa marka waxaa fursad lagu heli karo oo dadka mudan la heli karo oo maaragtay ra'yiga la heli karo dadka noocaas oo aragtay in la helaa ugumana daraasooyin lahaa ka muuqato dadka degdegaya oo maxaanku barnaamij kale iska fulinaya Soomaaliya waxay noqotay si loo horjeeday maaragtay midka oo ay kala sida noqotay qofkii taabtay oo raacaya marka wadan ummadda kala maanta hataa maanta ku sugnayn oo dadkii aan lahayn oo maskaxdiisa aan lahayn oo aqoontiisa aan lahayn oo cilmigiisa aan heli karin hadii dadka noocaas ay maqan in la degdego ma ahayn marka xagee loo baahay Sheekh Bashiir dalkii waa laga maarmaan inuu ka baxo dhibaatada oo kumeel gaarnimada ay dhamaato lana helo baarlamaan iyo kala dambeyn marka maxaad talo ku soo jeediseen mar haddii aad ka hor timaadeen qaabka qabyo qoraalka dastuurka uu ku socdo iyo tallaabooyinka beesha caalamka iyo dawladdu aad ku tilmaanteen mid la isu minguurinayo wallahi horta waxaa weeye wadanka in waxa ka dhigtay dawladda waxaa anagu aan ku jidaareynay ahayd oo xataa culamada maaragtay qaarkood xataa dadkayda ku waayeen qaarka ay halka ku jiraan waxaa weeye taageerida ay taageeraya in wadankan dawladda yeesho wadankan laga baxo weeyaan oo maaragtay dadka maxaanku ummadda laga weeyaa oo maxaanku dawlad la-aanka raba dadka horjirin horta dadka noocaas la keena maaragtay waxaana wadankii ka naxayaa nahay diintiina waardiyanaya ummadiina waardiyanaya nahay intaas waa mid kale waxaa weeye
in waxaan laga baxo kumeelgaarka laga baxo sumeynteeda lafteeda in hataa anaga naloo yeeriyahay lafteeda waa qalad markaas yirisid tan kale waxaa ummadan doctor maxaan maarata laga xiliyaa jiray oo ummadda maarata ismeel joogtay oo ummadda soo jeeday taa wax ka dambeeyey oo ummadda isla tilisay oo ra'yigeeda dhageystay oo yidhaahay ninkaa mar hamile halloodisna ma dhicin min hataa doctor ahaan yurubkan iyo dadka galbeedkahay doctorka uga yaqaanaan iyo sida hamle dugsiye war ummadan ummad qofkii doctorka lehdanka ay ugu horeeyeen qof kaloo ka dambeeyey ay ku diideen ma jirto marka cidda tirika lehdankii hala bedelo waa xigee oo ummaddaa matalaysa haddii tagtaa waxay tahay muslimiinta raggeeda madaxda ah oo dawladda iyo maaragtay marka hayay dad waxaa la noqday dalasha caalamku waxa ay rabaan unbaa naloo sheegaya